dowladda Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ayaa xalay duqeyntii ugu cuslayd waxa ay ka fuliyeen gudaha dalka Iiraan gaar ahaana magaalada Isfahan lagu magacaabo. duqeyntan waxaa loo adeegsaday gantaalo culus sida wararku ay sheegayaan, waxaana madaxweynaha Mareykanka uu bartiisa Truth Social Media lagu magacaabo uu ku soo daabacayba muuqaal muujinaya holaca iyo uurada cirka isku shareeray markii ay duqeymo culus ay ka fuliyeen goob la sheegay in hubka lagu kaydiyo oo dowladda Iiraan ay lahayd. muuqaalada waxay muujinayaan marka xilli waa berigii saaka ah duqeyntii ugu cusleed in laga fuliyo magaaladani. muuqaalada ayaa sidoo kale muujinaya sida gantaalada isugu xigeen goobaha la bartilmaameedsaday iyo uurada cirka isku shareertay. sida wararku ay sheegayaan waa berigii maanta sidaas oo kale duqeymo culus ay Mareykanka iyo Israa'iil ay ka fuliyeen gudaha dalka Iiraan. waxaana warbaahintu ay baahinaysaa in Mareykanka uu adeegsaday bambooyin culeyska uu gaarayo ilaa 910 kilogram. waxaa sidoo kale wargeyska Wall Street Journal uu sheegay in la beegsaday baqaaro hubka lagu kaydiyo oo ku yaala magaalada Isfahan oo bartamaha dalka Iiraan dhacda. dabka xoogan ayaa la arkaya iyo qaraxyada, iyadoo sidoo kalena aad la isu weydiiyey hubka culus ee la isticmaalay xalay. ma diyaaradihii B-52 ayaa la kiciyey mise gantaalo ayaa si wada jir ah loogu weeraray xarumo muhiim ah. tani waxay ka dhigan tahay mar kale in dagaalku uu galayo marxalad kale. tan iyo saddexdii maalin ee lasoo dhaafayna waxaad moodaa in duqeynta si gaar ahaaneed loogu beegsanayo warshadaha, xarumaha kaydka hubka iyo goob kasta oo la tuhmayo inay muhiim ay u tahay dowladda kale. Iiraan dhankeeda arrintan waxaa la sheegay inay ka jawaabtay. duqeyn culus ayay dhankeeda ku weerartay waa berigii maanta magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil, iyagoo ka jawaabaya weeraradii Israa'iil iyo Mareykanka ay ku qarxiyeen bartilmaameedyada ku yaala gobolka Isfahan iyo gobollo kale oo dhaca bartamaha dalka Iiraan sida telefishinka CNN oo Mareykanka laga leeyahay uu baahiyey. tani marka waxay ka dhigan tahay Iiraan inaanay jawaabtooba la daahin oo iyagana gantaaladooda ay ku harqiyeen magaalada Haifa, magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo dhaca koonfurta Israa'iil. nidaam difaaciidka Israa'iil ee Iron Dome ayaa la soo bandhigayay iyadoo ay ka baxsanayaan qaar ka mid ah gantaalada ka yimid dhanka iyo dowladda Iiraan. xaaladdu aad bay u adag tahay markaad eegto goobaha la bartilmaameedsaday 24kii saac ee lasoo dhaafay. waa berigii maanta sidoo kale Iiraan waxaa la sheegay inay beegsatay xarunta jaamacadda American University oo magaalada Suleymaaniya oo dalka Ciraaq ah. waxaana kambaska Suleymaaniya ku yaala la soo bandhigayay uurada oo cirka isku shareertay kadib markii diyaaradaha drone ee dowladda Iiraan sida la sheegay halkaas ay ku dhaceen. xaruntan in la beegsado waxay ku soo beegantay iyadoo Iiraan ay digniin soo saartay kuna wajahan jaamacadaha xiriirka leh ee Mareykanka ee ku yaala gobolka sida Qatar, Lubnaan, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Ciraaq iyo xitaa dowladaha kale ee Khaliijka. sidoo kale dowladda Iiraan waxaa la sheegay inay beegsatay xarumo ku yaala gudaha magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil, iyadoo seeriga digniinta uu isqabsaday qaybo badan. gantaalada dowladda Iiraan waxay sidoo kale maanta ay ku dhaceen xaafadda lagu magacaabay Beit Shamis, halkaasoo dowladda Iiraan ay markii horeba bilowgii dagaalka xaafado dhan ay dukumdaakum ka dhigtay. ilaa iyo 5 gantaal ayaa lagu waramayaa inay ku dhaceen xaafadda Beit Shamis weliba si toos ah kadib markii nidaam difaaciidka Israa'iil ee Iron Dome uu ka hortagi waayay. dhinaca kalena mas-uul ka tirsan dowladda Iiraan ayaa waxaa la weydiiyey suuragalnimada haddii Israa'iil ay bam nuclear ay isticmaasho jawaabta dowladda Iiraan ay bixinayso. isagana isma waalina wuxuu yiri wax ay la yaabaan horena aysan u arkin ayay jawaab ahaan Iiraan kaga heli doonaan. waxaad moodaa dhinacyadu markaa inay adeegsanayaan tallaabo kasta oo dowlad kasta lagu cuuriyaamin karayo, iyadoo Iiraan dhankeeda ay muujinayso awood xad dhaaf ah. sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan oo Mas'uud Akhtaari lagu magacaabo ayaa dhankiisa wuxuu la hadlay warbaahinta. waxa uu sheegay toddobaadyadii ugu horreeyay ee dagaalka inay burburiyeen raadaaro iyo xarumo kale oo muhiim ah oo ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil ay lahaayeen, kuwaas oo gobolka ku yaal si gaar ahaaneed gacanka Khaliijka. waxa sidoo kale uu sheegay inay beegsadeen baqaaro hub lagu kaydiyo iyo goob kasta oo danta Mareykanka ee dhanka gobolka ah. marxalad kale ayaad moodaa in la wajahayo marka la eego duqeymaha, iyadoo khubarada dhanka amnigana ay ku tilmaamayaan qalad istiraatiijiyadeed oo weyn tallaabada Mareykanka uu ku qaaday duulaanka ka dhanka ah dowladda Iiraan. wargeyska Wall Street Journal ayaa dhinaca kala baahiyay macluumaad ku saabsan madaxweyne Trump iyo xukuumaddiisaba inay isu diyaarinayaan sidii dagaalka loo soo gabagabayn lahaa. in madaxweyne Trump uu bartiisa baraha bulshada uu ku soo daabaco muuqaalada duqeynta ee magaalada Isfahan ma waxay ka dhigan tahay in uu doonayo guul isla markaana uu ku soo gabagabayn karayo dagaalka.
wargeyska Wall Street Journal ayaa ka soo xigtay mas'uuliin ka tirsan dowladda Mareykanka in madaxweyne Trump uu u sheegay saaxiibadiisa ku hareeraysan in la isu diyaariyo sidii dagaalka loo soo gabagabayn lahaa. wargeysku waxaa intaas uu ku darayaa in madaxweyne Trump uu ka fakarayo tallaab kasta oo dagaalka lagu soo gabagabayn karo, laakiin Netanyahu oo aad moodo in dagaalka aan la soo gabagabayn inuu doonayo ayaa mar kale hadallo kale maanta warbaahinta la wadaagay kadib markii waraysi uu bixiyo oo wuxuu yiri Iran madaxweynaha 47 ee Mareykanka laba jeer ayay isku dayeen inay dilaan, welina waxay doonayaan in ay dilaan. sidaa daraadeed reer Yurub iyo dowladaha kalena waxaan u sheegaynaa buu yiri inaan annaga difaacino. marka ma wuxuu doonayaa madaxweyne Trump inuu arrinta dilka iyo waxyaabihii kale uu xasuusiyo si uu dagaalka u sii wado. markasta oo madaxweyne Trump isku dayayo qorshe dagaalka lagu soo gabagabayn karo inuu miiska soo saaro, waxaad moodaa Netanyahu inuu war kale shaacinayo. dhinaca iyo Lubnaan haddii aan eegno, Israel waxay qiranaysaa 4 ka mid ah ciidankooda in ay dhinteen, ku dhawaad 11 kalena inay dhaawacmeen kadib markii Talaadada maanta sida la sheegay dagaal xooggan uu ka dhacay deegaanada koonfureed ee dalka Lubnaan. gootada Nahal lagu magacaabo ay ciidankan ay ka tirsanaayeen, waxaana kanaalka 12aad ee Israel uu baahiyay in weerar culus ay la kulmeen ciidanka, halkaasina ay ku dileen xoogaga Xisbullah ee ka dagaalama dalka Lubnaan. aan ku raaciye dowladda Kuwait waxay ku dhawaaqday mid ka mid ah maraakiibtooda shidaalka qaada in lagu beegsaday agagaarka dekedda magaalada Dubai oo dalka Sultanka Imaaraadka Carabta, iyadoo dhinaca kalena xukuumadda Dubai ee shacay ka qaaday ku dhawaad 4 ruux inay dhaawacmeen kadib markii burburka gantaalada dowladda Iran ay ku weerartay Imaaraadka Carabta ay ku dhaceen dhismayaal dad shacab ah ay ku sugnaayeen. mas'uuliyiinta dowladda Kuwait ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi waxay u sheegeen in markabkan oo lagu magacaabo Al Salmi weerar toos ah uu la kulmay waa berigii maanta oo Talaado ah, xilli sida la sheegay uu ku sugnaa dekedda magaalada Dubai oo dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. waxyeello ayaa la sheegay inay soo gaartay markabka kadib markii dab uu ka kacay. Iran ayaana lagu eedeeyay weerarkaasi inay ka dambeysay. Kuwait waxaad moodaa 24kii saaci la soo dhaafay in waxyeello kala duwan ay soo gaartay, maadaama marna laga burburiyay xarumihii biyaha sifeynayay, marna laga burburiyay mid ka mid ah xarumaha korontada ee dowladdaasi Kuwait. galbeedka magaalada Tehran oo caasimadda dalka Iran waxaa goordhow laga maqlay dhawaaqa qaraxyo xooggan oo loo badinayo inay yihiin duqeymaha ay Mareykanka iyo Israel halkaas ay ka fulinayaan. dhammaan arrimahan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah.